wafdigan ka socday Imaaraadka Carabta ee ka soo degay gegada diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa markii ay ka soo degayeen halkaasi waxa si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay gegada diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana wafdigan hogaaminayay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Uthman Al-Hamami markii ay ka soo degeen gegada diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa waxa loo dhaadhiciyay oo ay booqasho ku tageen dekada weyn ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay soo indheeyeen xaaladda dekada magaalada Kismaayo xilligaas oo ay ka socotay howlo shaqo oo aad u baaxad weyn sidoo kale waxa loo sii dhaadhiciyay dhankaasi xarunta madaxtooyada ee maamulka Jubbaland waxaana halkaas ay ku qaateen kulan ballaaran mas'uuliyiinta maamulka iyo sidoo kale safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya wafdigu hogaaminayay Maxamed Uthman Al-Hamami kulanka oo saxaafadda ee dibad joog ka ahayd ayaa wararku waxa ay sheegayaan in looga wada hadlay ilaa 3 qodob ay ugu muhiimsanaayeen siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha iyadoona wararku ay tilmaamayaan in ay Imaaraadka Carabta ay doonayaan in maalgashi ay ku sameeyaan deegaanada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo markii kulankaasi uu soo gabagabay kadib waxa wariyaasha la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhankiisa sheegay in ay ahmiyad gaar ah u tahay maamulka Jubbaland imaatinka safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Uthman Al-Hamami iyo wafdigu hogaaminayo isagoo shirkaasi jiraayid ka hadlayna waxa uu sheegay waxa maanta loo yimid booqasho aad u ixtiraam badan safiirka dowladda Imaaraadka oo fadhiya Soomaaliya Ambassador Maxamed Al-Usmani kulleyna waxaan ka wada hadalnay waxay ahaayeen guud ahaan qadiyadaha Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya xaaladeeda waxa looga qaban lahaa amni ahaan iyo horumarka dhaqaalaha intaba iyo gaar ahaan gobolkan Jubbooyinka iyo hawsha wax laga qaban lahaa waxa kale oo ka mid ahayd in naga caawinayaan dhamaystirka baarlamaanka iyo maamulka inta ka dhiman aad buu mahadsan yahay safiirka iyo dowladda Imaaraadka iyagoo isleeyahay wax badan ay hore u qabteen oo jira haddana waxay dhamaystirtay booqashadii hore safiirku ku yimid aad baad mahadsantahay sidoo kale waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay Maxamed Uthman Al-Hamami safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya oo isaguna uga mahad celiyay maamulka Jubbaland soo dhaweynta ballaaran ee maanta ay u sameeyeen في البداية نتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس أحمد على حسن الاستقبال والضيافة وهذا ليس بغريب عليه وبحكم العلاقة اللي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الصومال الفيدرالية وبصفة خاصة مع إقليم جوبا هذه تكملة للزيارة الأولى اللي تمت قبل شهرين تقريبا في كسمايو وسوف تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة القادمة بعض المشاريع التنموية في دعم جهود الاستقرار في جمهورية الصومال ومنها جوبا في مدينة كسمايو imaatinka wafdigan maanta ka socda dhankaasi Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku soo beegmaya waqti maalmihii u dambeysay wafuud kala duwan ay ku soo qulqulayeen magaalada Kismaayo kuwaas oo doonaya inay ka qayb qaataan howlaha markaasi lagu dhameystirayo maamulka Jubbaland iyadoona xilligan magaalada Kismaayo ay si weyn uga soconayaan olole ballaaran oo loogu jiro sidii lagu dhameystiri lahaa maamulka gaar ahaan qaybta xildhibaanada aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo